hoolka tiyaatarka Mohawk waxaa buuxdhaafiyey dadka xamaasaddu ay buuxdhaafisay ee sugi karila inta marada kor loo qaadayo ee jilayaashu ay soo muuqanayaan. Markii marada kor loo qaaday ee jilayaashii ay soo muuqdeen, waxaa markeli isku darsamay sacabka iyo qosolka jamhuurka ballaadhan ee u muhanayay daawashada riwaayadda. Marka laga reebo 2 nin oo fadhiyey 2 kursi oo safka hore ka mid ahaa. Labadaa nin wejiyadooda waxaa ka muuqday layaab aad u badan, rumaysan waa iyo xoogaa cabsi ah. Adiguna marka aad ka warheshid waxa labadaa nin ka yaabiyey, waxa aan hubaa yaabka wejigooda isku shaqlay mid la mid ah inuu adigana kula soo gudboonaan doono. Labada nin si aan shaki ku jirin waxa ay uga dhereegsanaayeen dhammaan dadka tiyaatarka fadhiya ee daawanaya riwaayadda, marka labadooda laga reebo in ay reer aakhireed yihiin. tiyaatarka Mohawk waxa uu sanado tiro badan nuxuus ku ahaa cid kasta oo wax ku soo bandhigta. Dhammaan riwaayadihii masraxiisa lagu soo bandhigayna iyada oo lagu guda jiro ayuu masraxu ku dumay, balse waqtiga labada nin ay tageen wuu xidhnaa oo muddo ka hor ayaa albaabada la isugu dhuftay. xaafadda tiyaatarka uu ku yaalo dadka degan waxaa ku dhex fiday kutirikuteen tibaaxaysa tiyaatarku haddii uu shaqaynayo iyo haddii uu xidhan yahayba in reer aakhireedku ay dhex mushaaxaan. sanadkii 1943 wararka kala duwan ee tiyaatarka laga soo sheegaya waxa ay ku riixeen labada baadhe ee kala ah Morris Rosington iyo Louis Miller in ay isku dayaan baadhitaan inay ku sameeyaan gudaha tiyaatarka si ay u ogaadaan dhabnimada wararka dadku ay isla dhex marayaan. Mulkiilihii tiyaatarkuna wuu ka ogolaaday baadhitaanka ay maagan yihiin, balse waxa uu ku xidhay shardi ah warka baadhitaanka ka soo baxaa in aan warbaahinta gaadhin si sumcad xumo hor leh aan ula soo gudboonaanin tiyaatarka. 5 Disembar ee sanadkii 1934 ayay labada baadhe u xidhxidheen dhanka tiyaatarka. Waxay go'aan ku gaadheen inay habeen u hoydaan oo dhacdooyinka gudihiisa ka dhacaya ay la noolaadaan. Markii ay yimaadeen, dhismaha tiyaatarku waxa uu ahaa mid laga cabsanayo oo muuqaalkiisu uu aragga u daran yahay. Gudihiisa haddii ay galeen, waxa kaliya ee ay maqlaayeen waxa uu ahaa codka dabaysha ee ku dhacaya dariishadaha. Markii ay soo kormeereen qolalka tiyaatarka, dhabooyinkiisa iyo qolalka jilayaasha, waxa ay u jeesteen dhanka masraxa wax lagu matalo. Gegida masraxa wax lagu matalo waxaa buuxdhaafiyey ciid xad dhaaf ah. Miller ayaa cod ka maqlay qol ku yaala xagga dambe ee masraxa. Isaga oo faraha hore ku soconaya ayuu albaabka qolka furay si uu u dheehdo codka gudihiisa ka imanaya. Waxa uu arkay nin foorarsanaya oo tiigsanaya seef dhulka taala. Markii uu Miller qolka hore u soo galayna, ninkii wuu qarsoomay oo wuu waayay. Halka Rosington isaga oo dhex qaadaya masraxa gudihiisa uu si kadis ah u dareemay gadaashiisa inuu qof taagan yahay. Markii uu soo jeestay, waxa uu arkay gabadh si kulul u eegaysa oo indhaha ku gubaysa. Waxay ahayd gabadh dheer oo hilboon oo timo iyo indho madow leh. Daalka wejigeeda ka muuqdaana waxa midabkeeda uu u rogay caddaan dhayda u eeg. In cabbaar ah markii ay daymootay ayay gadaal u jeesatay oo ay dhex muquuratay dhanka kale ee masraxa. intaa kadib labadii nin waxa ay fadhiisteen 2 kursi oo safka hore ku yaala. waxa aanay guda galeen inay duubaan waxa ay arkayaan ee hareerahooda ka dhacaya. waxa ay si kadis ah u maqleen codad iyo sawaxan. kulkii ay soo jeesteenna waxa ay arkeen muuqaal argagax iyo naxdin isku dhafan ku riday. waxay arkeen kuraasidii tarabuunka oo idil inay buuxdhaafiyeen dadweyne gashan dhar moodeelkooda uu ka muuqdo in la xidhan jiray 50 sannadood ka hor. sidoo kale waxa ay dareemeen muuqaalka dadkaasi inay ka muuqato in aanay dhab ahayn, oo wejiyadooda waxaa ka muuqday barar iyo caddaan la mid ah kuwa ka soo muuqda dadka meydka ah. qolalka sare ee dadka martida ah loogu talagalay mid ka mid ah waxay ku arkeen gabadhii uu mar hore la kulmay Rosington, balse markan may xidhnayn maradii dheerayd ee markii hore ay xidhnayd, ee waxa ay xidhnayd labis qurux badan oo ishu ay qabanayso. waxaanay si danayn leh u dheehanaysay stage-ka masraxa. mar kaliya ayaa sawaxankii istaagay, waxaana kor loo qaaday maradii. kadib waxaa soo muuqday muuqaal lagu matalayo meel kayna. waxay soo hortaagnaan 2 nin oo 2 seefood kala sita. midkood waxa uu ahaa nin cad oo gadh leh, ka kalena waxa uu ahaa nin madow oo gadh xiiran. dagaalkii ayay isku bilaabeen, halka dadweynihii dhacdada daawanayay ay si diiran ula socdeen 2 nin ee loolamaya. tiyaatarka oo idin lagama maqlaynin cod aan ka ahayn qacqacda ka yeedhaysa seefaha 2 nin. waxa uu Miller dareemay gabadha qolka martida fadhida dagaalka 2 nin in ay ula socoto qaab danin xad dhaaf ah uu ka muuqdo. si kadis ah ayuu u booday ninkii caddaa oo seeftiisa uu u geliyay laabta ninkii kale. qaylo ayaa ka yeedhay gabadhii qolka fadhiday, balse waxay ahayd qaylo ay la qaylisay farxad ay ku faraxday dilka ninka la dilay. waxa aanay guda gashay si xamaasad ku dheehan tahay inay sacabka u tunto.
maradii ayaa mar kale dib loo soo daayey, hoolkiina mar keli ah ayuu mugdi noqday, kuraasidiina ay marnaatay. maalinkii xigay Rosington iyo Miller mid walba waxaa la fadhiisiyey qol gaar ah, mid walbana waxa uu gudagalay inuu qoro warbixin gaar ah oo uu kaga faalloonayo waxay soo arkeen. kadib labadii warbixinood waxa ay noqdeen kuwo dhan walba isku mid ka noqday. intaa kadib waxa ay si qoto dheer ay u baareen sooyaalka tiyaatarka Mohawk. dabadeed waxa uu soo baxay dhacdooyin la yaab leh oo tiyaatarkan ka dhacay sanadkii 1880 waa waqtiga ay joogeen 50 sannadood ka hore. sanadka waxaa tiyaatarka lagu soo bandhigayay riwaayad magaceeda la odhan jiray Isha Soo Jeeda. waxaa jilayaal ka ahaa labada jile ee kala ahaa Jay Lang iyo Raymond Rose. waxaana laga wada warqabay in Rose xiriir jacayl uu kala dhexeeyey xaaska Jay Lang. riwaayadda ay soo bandhigayeen waxaa qayb ka ahayd dagaal ay seef ku wada gelayaan. kadib waxay soo ogaadeen labada baadhe in Damon Rose saaxiibkii Jay Lang inuu ku dilay gudaha dagaalka seefta ah ee riwaayadda lagu matelayay. sida la isla ogyahay, seefaha dagaalka ee riwaayadaha lagu soo bandhigo, seefta afkeeda hore waxaa lagu xiraa kubad yar si looga ilaaliyo jilaaga kale inay waxyeello u geysato. riwaayadda habeenkaa la soo bandhigayay waxaa la helay seefta Damon Rose uu ku dagaalamayay kubadda yari afka seeftiisa inaanay ku jirin. waqtiga waxaa la isla dhexmariyay kutirikuteen sheegaysa in xaaska Jay Lang ay laaluush siisay ninka shaqaalaha ka ahaa tiyaatarka si uu kubadda uga saaro seefta uu ku dagaalgeli doono Raymond Rose, si uu ninkeedu uu goobta ugu geeriyoodo. wararku waxay tibaaxeen maalinkaa laga bilaabo in rooxaanta reer aakhireedku ay ku gaafureegto tiyaatarka. baadhe Rosington ka hor intii aanu geeriyoonin sanadkii 1944 waxa uu gudagalay baadhitaan uu ku qaaday riwaayaddii lagu soo bandhigay tiyaatarka Mohawk habeenkaas oo uu wargeysyada ka mid ah uu wax ka qoray. waxa uu wargeyska ka helay sawirka labada nin ee jilayaasha ah. marka uu sawirada arkay waxa uu dareemay inaanay wejiyadani ku cusbayn. kadib markiiba waxa uu xasuustay labada nin ee sawirka ka muuqda inay yihiin labadii jile ee riwaayadda ku soo bandhigay masraxa tiyaatarka Mohawk. kolkii uu sawirka rogayna waxa uu akhriyay labada magac ee gadaasha dambe ee sawirka ku yaalay. waxa aanay kala ahaayeen Jay Lang iyo Raymond Rose.